إذا عبد الحسن درداني كسعودي إذا عبد الحسن درداني كسعودي ilka case ayaa gabi ahaanba sheegay in uu dalaaqay gabadhan waxa uuna cadeynayaa sababihii uu dalaaqay isla markaana uu u furay waxa uu sheegay inay sayidka caysay isla markaana madaxdii ogaadeen ay u gaftay sidoo kale waxa uu sheegay inay isaga ixtiraami weysay inta la iga siibay baabiye la idhexgeliyay toddoba nino oromaha i wastay biihoodiiba waxa la iga miiyay sagaal bari gaal jirka naag lagu bikri jabiyo oo waliba oroma shiiraysi Ethiopian quraaya wasaan laba nino oromaana farantii uu uga dhuuqa midna dabadu ka dubeeyaa asagoo saas dabada xaar ka daadanayna beeruhu falaa soo adeerka ma adiga adeerku ma kaaso maxaa ka sheekaynaysaa marka elmanba cadaantiisa iyo quruxdiisa inta ku isqraad taada kale waxa la yiri mayd maxaa u dambeeyaa dhahay kala siisido naad ilanimada igu caayaysid maxay tahay naagta uu elman qabo soo in adeerta maaha oo naag ogaadeen oo maxamed sudeero ree isaaqa maaha hadda aad lahayd ma elman baa qaba in adeertay waana qaraabatay in adeertay rakala waso annaga inoo sheegtay hadda ma lahayd aduu ma ku cadeynaysa dhilanimada hadda ogaadeen aad oga gilgilanayso aduu hadda ma isku cadeynaysa in adeerta ayadoo in adeerkay qabo rakala wasaan aduu hadda ma ka sheekaynaysa what is the point dhilanimo oga hadli kartay dhilanimo waa last name kaaga waana first name kaaga gus xaliiri waxaad soo caayday samiixa qaliil ma waxay ka sharaf badan tahay huda amuun sumaya siigo huda amuun bay caayday anuguna samiixa qaliil baan caayay sumaya siigo boqorkay caayday anuguna sayidkaan caayay what are you talking about khaniis la caayana khaniis la caayu leeyahay kii lugaha masaajiyaan sheegano khaniis aniga iima magac dhabin because khaniis ma jarteen ma jira hadda koorna sharad baan ku galay TikTok waa delete gareynayaa baa hal nin oo khaniis keeno ma jarteen waa keen weydeen kuwa lugaha masaajiyaan keenay marka ayda waa qof leh iyo qof lagu tiro war aydina 150 boogood baa leeyahay sameeyay waxa doonti faydnaka majziyun bi laga awaad marinaya maanta gabar Aysa qolus waxaad waataan rag badan gabdho badan waxaad aragtaa social media soo galo kuwa qaawan kuwa muuqaalo ay u qaawan soo dhigo kuwa maxay tahay xabadka ruuxayo gabar kastoo qaawan oo la soo dhiga haddaan aragtaa social media ama soo dhigto waxaad ogaataan walaalka ayada dhashay ayaa gabar madaxi aragtaan ويدينتي بقى ليه marka oo gabar muslimada qaawiso oo aad ceebayso ceebaheeda aad raacdo adigana ilaahay adigu maxay ceebahaada maxay ku salladaya walaashaada birinta la soo qaawinaya sida darteeda marka gabdhaha muslimaadka inaad ceebahooda raacdaan oo qaawisaan oo ceebaysaan oo jaayifeysaan waa faasiqnimo weey wax wanaagsan ma taasi gaar ahaan gabadhan walaasheena intaas oo sana la caynayay oo habeenii maalin baa la caynayay qabiil Soomaali ka dhashay caynin malaha ayadoo sidaa tahay hadana ninkii qabay ee walaalkeena ahaa waa tuxshmeyn weydeen cidii qabtay baa markaa dacaydu bilaw gabdhood iyo qaar ka mid ah cayl ma wada xumaan reerkay uma wada xumaan laakiin kuwa caynaya waxaan leeyahay wareel maadee rayaalo gabadhan banaanka laga maro xitaa maanta hadii wax caydo gardaradana waa garteedana waa gar aad baan idin salaamayaa ninka wax soo qorqoraya fani waxaas saaxiib meeshan ciyaar suuq ma laguma baahno sida way taliya ma fahant marka laba nino oromaana farantii uu uga dhuuqa midna dabadu ka dubeeyaa asagoo saas dabada xaar ka daadanayna beeruhu falaa soo adeerka ma adiga adeerku ma kaaso maxaa ka sheekaynaysaa marka elmanba cadaantiisa iyo quruxdiisa inta ku isqraad taada kale waxa la yiri mayd maxaa u dambeeyaa dhahay kala siisido naad ilanimada igu caayaysid maxay tahay naagta uu elman qabo soo in adeerta maaha oo naag ogaadeen oo maxamed sudeero ree isaaqa maaha hadda aad lahayd ma elman baa qaba in adeertay waana qaraabatay in adeertay rakala waso annaga inoo sheegtay hadda ma lahayd aduu ma ku cadeynaysa dhilanimada hadda ogaadeen aad oga gilgilanayso aduu hadda ma isku cadeynaysa in adeerta ayadoo in adeerkay qabo rakala wasaan aduu hadda ma ka sheekaynaysa what is the point dhilanimo oga hadli kartay dhilanimo waa last name kaaga waana first name kaaga gus xalaala layga soo celiyay sharci la'aan
mid xaaraana la maraya walaal maajo waa baxdaa u maraya kaga fogow ka fogow hiibka gaaray waxaan qaldaraad way cabsantahay mid kalmaaya way cabsantahay iska yare qamriga maaya iigu dareen no waa iigu dareen 24 soo dhiga no waa iigu dareen no way way soo dhex gashay maanta way cabsantahay walaalle waad ku daraysaa laan dheeranimo daqiiqad bad maajigo ku daraysaa waayo way soo dhex gashay gabadhan sarqadaa gaartay qamray cabtay intay la sheekaysanaysay shaatiskii bay badisay gabadhan ma seexatee waa la suuxiyaa in adeer macaan toddoba beri bay hadda mala hadle maanta 6 bilood oo kale life ku jiraysaa ana iga sheekaynaysaa way falanqaynaysaa anigu waa iska soo baashaalaya magaalada aadiya laan dheeranimo because gabadhan xafsa kuweyn gabar la dhaha qalbada jabisay waayo naagtan intay gus xaaraana u dhooftay oo ninka hotel la degtay oo sidii loo dhaxda loogu hayay la cayriyay baa xafsa laga raacay qalbada soo jabta naagta ayadoo wasan warna raacay Mareykan ku soo noqotay way waalatay maryahay tuurtay joker teeda kale dabeecadan ku arkay naagtan anu waa ka shakiyay Soomaaliyeed naagta aad bay u fuulxuntahay why because naagtan gabar kastoo qurux badan waa daba socotaa xafsa kuweyn bay daba socon jirtay waa ka hartay anay daba dhigatay gabadhan naag qurux badan ma arkirtay allergy bay ku qabtaa naagtan haddaan qiyaaso waa naag u eg gooncad bay u egtaa because gooncad suu iyo caayi maalin damaal it's waa midget dadka gaagaaban waay amay walaalay macaan dadka gaagaaban waa dhib badan yihiin waa maqlee gabadhan amay iskiimos tahay war Soomaaliya gabadha inay iskiimos tahay u malaynaa because dadka dhibka badan waa dadka iskiimoska naagta ka waran shaqo gelisay 3 sano inay codkayga practice garayso aniga ikoobiyeyso jacayl ii qabto waa ay jecesha she loves me waa naagta codkayga koobiyeysay oo practice garaynaysay 3 sano 6 biloodna ay caayis just attention ay heesh congratulations you win the lottery today lottery baa win garaysa maanta because anaa kula hadlay anaa waxaan kaala sheekeeyay khaniisiintaadii baan kaala sheekaystay deeq baan ka sheekeeyay asagoo lugaha daliigay qaniiska ogaadeen oo ree Cabdulle meel kale laga raadinayo YouTube-ka gal waa arkaysa asagoo lugaha duugayo raalliyanimo waliba anu waaba ka bartaaba hadda markii la guursaday waa shitaa wallahi waa shitaa deeq waa shitaa lugaha riixayo sida ninkaaga raalliyo loogu noqdo sida ninkaaga loo qadariyo ninkaaga loo respect garay waxaasan daawadaa سيد محمد عبد الله حسن هورالة على الجامع يهلق ضمير باله نيمك قصص كودو كجبي جري نيمك وكعسن جري سيدكي قص وين هدو أرك جبي وكتير قنيس نيما أدا هوي أي باي الله يا واسمنا